maxaad ka taqaanaa shanta meelood oo dunida ugu khatarta badan? Ma ahan sheeko xariir, balse waa xaqiiqooyin cilmiyeed oo naxdin leh. Maanta muuqaalkan waxaa idinku wadaagi doonaa shanta meelood adduunka ugu khatarta badan. Halkan waa kanaalkeena cusub ee fahamka nolosha. Waxaan kusoo gudbinaa xaqiiqooyinka iyo xogta caalamka. Subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada xiga. Waxaan ku bilaabaynaa kaalinta shanaad, jasiiradda North Sentinel oo ku taala badweynta Hindiya. jasiiradan waxaa degan qabiilka Sentinels oo halkaas ku go'doonsanaa in ka badan 60,000 oo sano. Dadka halkaas degan waxay u arkaan shisheeye kasta cadow. Waxay ku weeraraan fallaaro iyo warmo qof kasta oo xeebta u soo dhawaada. Dowladda Hindiya waxay ka mamnuucday inaan loo dhawaanin in ka yar 9 kiiloomitir. Sababtu ma ahan oo kaliya badbaadada, balse dadka halkaas ku nool ma lahan difaac jireed oo ay isaga caabiyaan cudurrada casriga ah. Xitaa hargabka caadiga ah ayaa dabargoyn kara qabiilkaas oo dhan. Kaalinta afraad waa jasiiradda masaska ee Brazil. Meesha looma ogola bini'aadamka, sababtuna waa Golden Langshead Viper oo ah mid ka mid ah masaska dunida ugu sunta badan. Sunta masaskan waxay shanlaab ka xoog badan tahay masaska dhulka kala jooga, waxayna awood u leedahay inay hilibka qofka dhaliso daqiiqado gudahood. jasiiradan ma laha hal qof oo degan, xitaa kaanadii maraakiibta halkaas ku teel waxaa loo bedelay mid otomaatig ah kadib markii masaska ay dabargooyeen qoyskii ugu dambeeyay ee maamuli jiray. Waxaa kaalinta saddexaad ku jiro Death Valley, dhulka loogu yeero dooxada geerida ee dalka Mareykanka. Halkan waa halka ugu kulul adduunka, iyadoo haysata rikoorka heerkulkii ugu sarreeyay ee ibid la qoro, kaasoo gaaraya 56.7 digrii centigrade. Waxaa ku yaal Badwater Basin oo 86 mitir ka hooseeya heerkulka badda. Roobka halkaasi ka da'a sanadkii wuxuu ka yaryahay 5 sentimitir. Kulaylka daran iyo biyaha oo si dhaqsi ah u umibaxa ayaa keenaya in qofka uu dhiman karo fuuqbax iyo gubasho saacado gudahood haddii halkaas uu ku lumo. Kaalinta labaad waxaan kusoo noqonaynaa geeska Afrika iyo saxaraha Danakil, goobta loogu yeero albaabka cadaabta. Waxay leedahay muuqaal u eg meerayaasha oo kale. Waa halka isugu yimaadaan 3 ka mid ah tectonic platiska oo si kala fogaanaya. Waxaad ku arkaysaa godka ay ka buuxaan harooyin aashito iyo sulfur ah, iyo volcano oo leh harooyin dab ah oo weligood gubanaya. Hawadu waa uuro sun ah, heerkulku wuxuu badanaa ka sarreeyaa 50 digrii centigrade. Waa mid ka mid ah deegaanada ugu adag ee nolol ka jiri karto. Ugu dambeyntii, nambarka koowaad waa Bermuda Triangle. Meeshan waa halka ay ku lumeen boqolaal diyaaradood iyo maraakiib. Inkastoo ay jiraan sheekooyin khuraafaad ah, xaqiiqdu waxay tahay in halkaasi ay ka jiraan mowjado waaweyn oo dhererkoodu yahay 30 mitir iyo khalkhal ku yimaado cufisjiidadka oo qasba qalabka hagida. Bermuda Triangle waa tusaale weyn oo ina xasuusinaya in aqoonta bini'aadamka ay tahay weli mid kooban marka lala bardhigo siraha Alle uu ku qariyay moolka badda. Goobahan aan soo aragnay ma ahan kaliya khatar, balse waxay xasuusinayaan awoodda Alle uu leeyahay. Adiga halkee kugu yaabka badneed? Noo reeb fikirkaada qaybta farada, muuqaalka laag saar, fiidiyowga si share garay, mahadsanid.